isbiirsaday ee ka daay guud ahaan gobolka Sool iyo gaar ahaan magaalada Laascaanood xilli dadka ku dhaqan magaalada ay haysatay biyo la'aan aad u xoog weyn iyo abaaro daba dheeraaday roobkan oo ay dadweynuhu aad ugu farxeen ayaa kii ugu horeeyay curashada xilliga raxmaadka Rabbi ee guga ay ka daan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo ay ka jirtay biyo yaraan sababtay in xaafadaha qaarkood biyo dhaamis loo sameeyo iyadoo xilligan lagu jiro uu yahay xilliga gugu dii jiray ee amisna ay deegaanadana ka jirtay abaarada xoog weyn roobka waxaan ugu dirsanay si qabow iyadoo ay u baahnayeen xoolaha dadka magaaladuna ay si aad ugu baahnayd guud ahaan gobolka Sool waxaana Ilaahay ka bareena in uu raxmadkiisa noo hooriyo wallahi roob aad iyo aad u fiican ba magaalada ka daay roobkani dadka aad bay ugu dirsadeen magaalada gudaheeda waxa ka taagnaa abaar ballaaran oo saameysay miyiga iyo magaalada marka waxaan leenahay alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ugu mahad celinaynaa Ilaahay sidoo kale roobkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay ka curtay qaybo ka mid ah gobolka Cayn iyadoo sida lagu soo waramayo in xilligan uu ka daay roob fiican roobkaas oo helay deegaano badan iyadoo dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasina ay aad ugu farxeen raxmaadka Rabbi ee xilliga guga roobkan daayay 24 saacadood ee la soo dhaafay ayaa wax khasaare ah geysan iyadoo raxmaadka Rabbina ay dadku aad ugu diirsadeen Cabdiraxmaan Cali Ducaale